bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum. kulanti habboon daawadayaal, waxaad ku soo dhowaataan qaybtii shanaad ee taxanaheennii irbaddii eelka reebtay. sheekadan waxaa qoray qoraa cabdilaahi saalax axmed. qaybtanna waxay ku bilaabmaysaa sidan: markaan soo gaadhayba uu isoo dhoweeyey, markanse diyaar uma ihi, quus baanan taaganahay. waxaan weydiiyey kuna soo qadimay sideen xanuunkan ku qaaday. hore ayuu igu soo fadhiistay isaga oo leh xagaag dhowr siyoodba waa suurtagal adeero. oo sidee ah baan ku celiyey. aamus buuna galay. xaas ma tihid sow maaha ayuu yidhi. waanse dareemay in uu ogaan u maraataynayo. maya ayaan kaga jawaabay. aamus kala dabadii miyuu jiraa qof aad galmo wada samayseen ayuu igaga nixiyey. indho kulul ayaan ku eegay. sidee buu ugu dhiiraday inuu naftayda su'aasha nacasnimada leh kula dhaco? hooyaday suuban iyo tarbiyaddeedii ma anaa meel kaga dhaca? af adaga oo su'aal xumaa wuxuu awoodda aan jawaabtaa ku bixinayo in aanan lahayn ayaan xaqiiqsaday. maya ayaan iyana kaga gaabsaday. wuu kacay daqiiqado koobanoon is-idhi uu ugu talo galayna iga baxay. markuu soo noqdayba wuxuu gudagalay sharaxaadda xanuunka iyo sida lagu kala qaado. in hooyadu ilmaha u gudbiso ayuu ii sheegay. galmada oo ta ugu badan ahna wuu ku gudbaa ayuu iigu daray. waxaa soo raaca dhiig lagugu shubo iyo qalab ama biro ku sara ayuu iigu soo gebagabeeyey. muddo ayaan kala aamusnayn oo midkaayaba islahaa bilow hadalka. nafta ayaan howlgal dheer u diray, maskaxdana wax badan daaliyey. inta uu sheegayba midda aan u banbaxay hore waan xasuusan waayey. sug ayaan la soo booday. uu naxay. maxaa dhacayna yidhi. irbaddii ayaan idhi. ama kaag baa u sii kordhay. irbadee ayuu iigu halceliyey. waxaanan u soo bilaabay shaqadeeda iyo cisbitaalkan ka xoogsan jiray, reerkana biilka uga soo saari jiray. nadiifiso mushahar fiican qaadataa in aan ahaa ayaan u sheegay. anigoo ilmaynaya ayaan xasuusta dib ugu celiyey. maalintii aabbahay aadka u xanuunsanayey, duhurkii hooyo ii soo sheegtay iyo kaarkii igu kordhay ayaan si kooban ugu dulmaray. waxaa jiray baan ku idhi irbado dul saarnaa miiskii aan markaa nadiifinayey. maskaxdayda oo gurigii joogta, aabbana ka warwarsan, ayaa hawshii degdeg ku qabatay. miiska oo irbado saaran yihiinna haabhaabatay. dabool haddaan is-idhi irbaddii furkeedii yaraa ayaan la waayey. irbaddii oo ilaa lafta aroortayna waan ku war helay. qolkii iigu dhowaa oo aan markaa shaqo badani ka socon ayaan caawimo u raadsaday. si fududna waa lay daaweeyey. dhiiggiina loo joojiyey oo balasar lagu dhajiyey. fartii ayaan ugu gabagabeeyey. haa buu yidhi. waa taa haddaba halka lagaa raacay. waxa daawooyin oo ka hortag ah iyaad qaadatay. naqas isaga leeg ayaan dabadeed u soo tuuray. cod dhiiranna ku idhi ma qaadan. waxaanan ugu sababeeyey anoo ku degdegayey xanuunka aabbo ee markaa lay soo sheegay. waan ogaaday halka layga raacay, maxayse soo kordhinay. yaan eersadaa iminka cisbitaalkii oo u tagaa oo irbad aad leedihiin baan eedis ka qaaday ma idhaa. yaase waxaa iga dhegaysanaya. cidda doqonnimadaa u diyaari wa'ayo. maya diyaar uma tihid culays. intaa ka badan ayaan naftayda kula xanshaashaday. anoo fakeraya ayuu igaga naxsaday. adeer nasashaad u baahan tahay. xaalkaagoo dhan baan la socdaa. xanuunkanna waa lala noolaan karaa. sidaan horeba kugu sheegay, waa hadba sidaad ula tacaashid. wixii daawo iyo taageero ahi waa dhankayga ee aadna yiirista lagaa helo. isoo booqo sida ugu dhaqsaha badan si aan kugu bilaabo daawooyinka. wixii aad u baahatidna haygala xishoon. ayaamo kale oo mugdi badan ayaan ku sii dhex jiray. dunida oo dhan in la soo duubay, furaashkayguna ka harsan yahay ayaan u haystaa. minaaradda masaajidka ii dhow
oo igu beegnayd ayaan dhowr goor ka maqlay khudbado qiyaamaha ku saabsan, anigase qiyaamahaygu inuu hore u dhacay ayaan aaminsanaa. 3 toddobaad maan tegin cisbitaalka, waxaan ka maraataynayay in xanuunku igu sii kordho. intaaba naftaan been ku maslaxayay, subaxanse waan isa soo khasbay. mucjisadu waxay tahay iridda cisbitaalka markaan marayay ayaan ku warhelay indhaha igaga soo maqan 2 kalkaaliso oo barbar iga taagnaa, iyo codadka hoose ee aan kala saaridooda ku wareeray. dareen baa i galay in warkayga la hayo. waan sii naxay, runtii cidda u sheegtayna waan garan waayey. dadkan waxba kama qarsoomaan. waxa sir xafididda la yidhaahdaana waa ka sheeko bereley iyo waxba kama jiraan. dhakhtarkii daawooyin buu ii qoray, noloshaydiina wuu kafaalo qaatay maadaama aan ka tegay shaqadii hore ee nadiifinta. waxaan sidii ku noolaadaba warkaygu wuxuu gaadhay xaafaddan degganaa. qulumaha u xil saaran warfaafinta ayaan baadhistooda isku hawlay, mase garan takooris badan ayaan xaafaddii kala kulmay. naftaydiina dayac aan yarayn baa la soo gudboonaaday. la socdaa wada qaybtaynoo xigta. qaybteennan sheekada waxaa qoray Qora Cabdilaahi Saalax Axmed.